dowladda dalka Talyaaniga ayaa maanta magaalada Muqdisho ku guddoonsiisay bilad sharaf gudoomiyaha baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Sheekh Cusmaan Jabaari munaasabadii bilad sharafta lagu guddoonsiinayay waxa ka soo qayb galay ra'iisul wasaaraha dalka qaar ka mid ah golayaasha labada aqal Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya wasiir ka tirsan xukuumadda dalka iyo mas'uuliyiin kale wariyaha SBC Muqdisho Haajin Cabdulqaadir Nuur oo munaasabada ka qayb galay ayaa warbixintan noogu diyaariyay munaasabada bilad sharafta lagu guddoonsiinay gudoomiyaha golaha shacabka Soomaaliyeed Professor Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari ayaa waxa ka qayb galay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre gudoomiyaha ku-xigeenada baarlamaanka xubnaha labada aqal ee dawladda safiirada Talyaaniga iyo Turkiga saraakiil ciidan iyo marti sharaf kale ayaa lagu qabtay dugsiga tababarka booliska ee Generalka ee magaalada Muqdisho inta ay socotay munaasabada ayaa lagu soo bandhigay suugaan ay kooxda Hegan ay farxadda kula qaybsanayeen bilada Talyaaniga ay ugu talgaleen gudoomiyaha golaha shacabka Soomaaliyeed Professor Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari waxaana mas'uuliyiintii ka hadashay munaasabada ay qireen in professorka uu ku mutaysay biladaasi sida uu soo dhabar adeegay hab maamulka baarlamaankii 9aad iyo kan 10aad uu hadda majara u hayo waxaan leeyahay dawladda iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed gudaha iyo dibadda naway ku ogtahay mudana gudoomiye inaad tahay ahlu sharaf damiir wadaniyadeed iyo dareen lagu xusheeyo leh oo huwan dux iyo iimaan ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa sheegay in uu mudan yahay Professor Jawaari biladaasi waana ka xunahay buu yiri in dawladda lagu hormaro bilad sharaftaasi inaan u mahadceliyo dawladda Talyaaniga oo soo qaban qaadisay xafladan waxaan aad uga cudur daaranayaa in annagana la kaga hormaray biladan inaan gudoomiyaha anagu guddoonsiino waxaan aad ugu boorinayaa shacabka Soomaaliyeed iyo madaxda qaranka in maalinta ay tahay maalin uu bilowday in dhaqankeenu iska bedelo inaan ammaano madaxdeena markay shaqo wanaagsan qabtaan runtana u sheegno markay shaqo wanaagsan qaban waayaan safiirka dawladda Talyaaniga u fadhiya Soomaaliya Paolo Banbanini ayaa sheegay in biladaasi madaxweynaha Talyaaniga uu u wakiil yahay guddoonsiinta gudoomiyaha golaha shacabka waxana uu ku mutaysay buu yiri karti daacadnimo iyo maamul wanaag oo golaha shacabka u horseeday and we organize for him electio magistralis marka hore gudoomiye guddoon biladaasi oo isoo wakiishay madaxweynaha Talyaaniga waxaana ku mutaysatay maamul wanaag aqoon iyo aragnimo waxaynu kula qaybsanaynaa farxadda bilad sharaftaasi oo ay dawladda Talyaaniga guddoonsiiso hogaamiye baarlamaan ku sifoobay karti aqoon iyo aragnimo iyo maamul wanaag ku dheehan sharci waana bilada ugu sareysa oo ay bixiso Talyaaniga poetries from the Italian classic tradition gudoomiyaha baarlamaanka Professor Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari oo soo gunaanada xafladda ayaa ugu mahadceliyay baladaasi madaxweynaha Talyaaniga waxaana ay muujinaysaa buu yiri xiriirka qotada dheer ay Talyaaniga la leeyihiin Soomaaliya mahad ballaaran aan u jeedinayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Talyaaniga mudane Sergio Mattarella oo aniga shakhsi ahaan iyo golaha shacbiga Soomaaliyeed nagu maamusay biladan jamhuuriga ah iyo shahaado sharafta heer qaran oo ay Talyaaniga ku maamusto dadka mutaysta maamuskan waxaa iska leh shacbiga Soomaaliyeed iyo golihiisa shacbiga saadaradeed waxaan mudane madaxweyne Mattarella munaasabadan iyo maamuskan kaaga gudoomayaa magaca shacbiga Soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaan muwaadiniinta iyo dadweynaha Soomaaliyeed Haajin Cabdulqaadir Nuur warbaahinta SBC magaalada Muqdisho